كليgeeda shukaansataa miya ya keligeeda shukaansataa oo daacad u tahay walaal war ma ku sheegaa faraha iga qaad walaalo maxaa dhacay ya okay gabadha adii jeceshahay magaceeda noo sheeg dhima lahayn maxaa daruuri hataa magaca kuu sheego yacni barnaamijka wuxuu yahay mataqaanaa hee tijaabi jaceylkaaga inuu daacad ku yahay qaali jacaylka ma ani bas u hayaa mase bulshadii oo dhan mase waxaa loo baahan yahay inay wada maqlaan caalamka oo dhan jacaylkan ani haya ayaga dhan waa safaa laga wada maraya maanta adaa lagu maraya noloshaada waxaa fiican secret inay tahay barnaamijkan dee waa taqaanaa umalayn anuu ay taqaanaas cabaaraan wada moogtay dadka badanaa su-aalaha ka keena maar dad daacad ahena u egeen yani aada u dheelinaysaa sheekada intaa ila geloysaa ani waxaan ku weydiiyey un gabadha magaceeda noo sheeg waa sheegi lahayd adduunkaaga hor u wadan lahayd okay maya iigu dhiib hayay gabadhaan la hadlaya intaas haddaan kugu dhiibi soo codkeeda ma maqlaysid waan maqlaa markiidaad ogaani inaa jacayl laga dhexeeyo yacni su-aasha waxay tahay adoo codkeedana maqlin oo anna kuu sheegin aa la rabaa inaad magaceeda sheegto markaasaan kugu dhiibaa tii aa sheegto inay noqotay iyo in mid kala tahay ilaan haddii hal jirto halle waa moogtahay laakiin ragtanimo haddii laba jirto waa dhihi kartaa labaa jirto hebelna way jirtaa hebelna way jirtaa waa caadi runtii unbaa sheegta marka hadda mid maa jirto mise labaa jirto ama saddexaa jirto adoo qalbigaa ka hadlaysa rag ilaahay afar buu u baneeyey meeqaa adig maad iska guursatid laba ama saddex ma adig hadda meeqaa la socotaa aniga la socosho maaha intay diintii banaysay inaan gaarsii waan jeclahay okay hadda waktidan hadda xaadirkan gabar adig jeceshaa ma jirtaa xiriirkaa la dhexeeyo gabar ma jecle so hadda adiga lahaa way jirtaa mise waxay isir ama waxa qaladaa nafteydan jeclahay waxaa sii jeclahay hooyaday waxaan ku weydiinaa barnaamijka waa aragtay lacala maanta haddii adiga imaan lahayd maaragta agteeda joogi lahayd oo qof tijaabsan lahayd yani inaad samaysid in kala khasab ma baahan yani kaba soo qaad waa samaysan qofaa wacatay maybe gabar yani waxa idinka dhexeeyaan oo waqtina gelisay oo laga yaaba ragaa tahay marmar waa sameynay kumelihi qarasha dadka galaa jiraan moogta waqtiyaa gelisay adiga axad iyo balana idinka dhexeeya qalbigaagaan muhiim ku ah markasta moogta qofkiyaa wacatay ma jeclaan lahayd in information un ka heshid yani magaca un la sheego ama qof kale ha la sheegay waxaa kaga sabartid in la helo soo ma jeclaan lahayn hade adiga booskaaga isgeliyo qoftan qadari kastoo at least wax un siiya ay ku tagto marka magaca un sheeg marna waa jirtaa marna ma jirto nafteeda jeclaa waxaa waaye marka hadda maxaa ligi rabaa maxaad iga rabtaa khaasatan adiga hadda waxaan kaa rabaa gabadha adiga jeceshahay magaceeda meeli shukaansan rabtaa maad nambarka qaadidada rabta maya kulma shukaansanayo gabar adiga shukaansateed see u shukaansanayo base hadda maxaa daruuri ah oo kaaga dhigay jacaylka maxaa usoo dhex gashay daacadnimo un baa la ogaanaa daacad ma tahay adi daacad lilahi allaba daacad waay gabar yani taas waa la ogyahay yani gabar xiriir shukaansi oo daacad u tahay ma jirtaa oo isku tashtiin magaceedana magaca qasab ma inaan sheego xabi yaa la dhahaa xabiibi ya xabiibi yaa la dhahaa xabiibi yaa la dhahaa xabiibo maa ka wadaa mise may xabiibi soo hadalla romantigo liskugu wac ma jiraan markii la sugaansado magaceeda yani aa ku baratay shimbirtaydaan dhihi karaa mar xabiibiyaan dhihi karaa marka magaceeda caadigana magaceeda caadigana kan iyada ha kuu sheegta kan hooyadeed ay ula baxday kee waa kaas kan adiga kuu sheegta kan adiga u taqaanid xubbi iyo xabiibi kan adiga ula baxda kuma dhihin magacii aa ku baratay magacaan ku baratay maxaan kuu bixiyaa aan isdhahnino bacdi xubbi iyo xabiibi way dhihi kartaa ay ugu tiri intay joogtaa intay joogtaa nairobi joogtaa okay magaca ka bilaabana sheeg bal letterka sheeg yani magaceed muxuu ka kacaa xaadaas uu ka kacay xubbida daacad matiide waaw maxaa dhacay kawar adi gabar adiga tijaabsaday ku dhaadan iyo ninka caluuli ulba haday ku dhaada kawar
waa diyaar walaalkee soo daacad matii soo maaha daacad waa leh gabadha magaceeda noo sheegay laakiin daacad waa nahay laakiin public daacad uma private daacad waa maxaa sababay adoo wejigaaga loo jeedin oo codkaaga un la maqlaayo jista codkaaga inaad qoftaas magaceeda sheegtid wax public galaya maxaa waaye oo as leedahay adiga maya ani ma dhihin hadba ma dhihin aan shaac bixiyo qofkaan jeclahay magacaygaan shaac bixiyo mase ma dhihin soo magaceeda ma sheegaysid ya ma sheegay ka war haddii ay u fahamto in yani daacad aheen oo saan ku kala dhamaateen waxa ma aragtid waxba ma arki waayo iidaa danaysatay okay dhib male daacadka ridwan mi maqlay gabadha kugu dhiibar ma haddii lays aaminaynin jacaylba ma jiro haddii daacad laysku noqon karin dee qofka magaceeda sheegi karin daacadnimada sheegaysa maxaa no of course doesn't matter inaad public ka sheegto magaceeda idaba hadday la soo istaagto meel in daacad loo noqdo caawa waa iga bas diyaar waay dhib male okay shimbirtii ugu dhiibaan hadlay waa ma sheegaa tiri soo maaha so ani hadda according to me daacad matid waay dhib male ayada waxay u fahamsayday jirtaa last minute waxa waay magaceeda ma sheegi kartid ma sheegayo wuxuu ka bilaabanaa ma sheegaysid ma sheegayo okay la hadal shimbirtaada wasay hala ana inkire soomaa shimbirtaada wasay walaala iska kalbo codaada aad hooyada u sheegay awal faaraxda inaad ridwaan aad tiraahdo qof ii tijaabi masisane awal badaacad meen intaas intaa ogaaday bisaarabe abbay kugu tahay sidaas ceebtaada usla waryaa noloshaada private ka dhigo sagaala wadaa ii sheegi maxasani egoy awowe okay bye okay maxaa ka fahamtay dood dheera galna weliba bismillah walaa farxsanay intan inka bad intaa waqti ku lumin waqti aad u badan maxaa ka fahamtay adi masaan u wareegaa mise markuu kula hadlayo si khaas uu kula hadlayo hadda ma hadda way iska xadee daacad baaxad laakiin waxaa ka xumaanay intaa inka bad intaa waqti ku sii lumiyo hadda intee la socdaa tiri hal sano dana qabsan lahaa wax badan iyo hagaaga la sumud